Kabsamaye waxaan go'aanayaa inaan laba hadlayaan isafgarata isafgarata Kabsamaye waxaan go'aanayaa inaan laba hadlayaan isafgarata isafgarata dhammaantiin waa salaamantihiin khiyaarta Soomaaliyeed. Maantay waxaan rabaa halkan inaan kasoo jeediyo cashar yar oo ku saabsan sida lacag looga samayn karo online-ka. Sidaan ka warqabno adduunyada aad ay isku bedelaysaa oo qaabka hore oo businesska ama ganacsiga loo samayn jiray wuu isbedelayaa. Waxaa imaanaya qaab kale oo ah internet marketing or internet business. Marka opportunity badan ayaa jirta oo lacag looga samayn karo, ma la soo koobi karo qaabka lacagta looga samayn karo. Marka adiga haba inta tabartaadu gaarsiisan tahay iyo sidii aad uga faa'iidaysan kartid ayaa loo baahan yahay inaad uga faa'iidaysatid. Marka maanta videogan waxaan casharkan kugu soo gudbinayo macnaheedu ma ahan inaan wax kasta ina tusayo, laakiin tusaalayaalna waan idin siinayaa. Sidoo kale waxaan fiirinayaa haddii masalan dad badan oo danaynaya ay jiraan oo Soomaaliyeed oo aan responses badan aan ka helo, masalan dad rabo inay aan tusiyo qaabka because qaabab badan oo loo sameeyo ganacsiga internetka ayaa jira. Markaas ayaan waxaan samayn doonaa casharo insha Allah step by step aan dadka u tusinayo intii aqoontayda ah oo aan garanayo qaabka aan u sameynayo, qaabka aan u sameeyay anigu nafsadayda iyo adiga qaabka u samayn doontid Ilaahay ku idmo. Marka mana ahan wax kasta oo horta aniga aan soo duubo ama cashar ah waxay noqon doonaa wax free ah oo dadka free u ah, wax mataqaana ishaq la dhahayo membership iyo xagga ma jirto. Marka for example ahaan sida hore aan u sheegnay internet marketing aad ayuu u ballaaran yahay. Marka adiga haddaad luqadda Englishka aad garanaysid ma ahan mataqaana 100% garanaysid, laakiin dad luqadda wax akhrin kartid waxna qori kartid waxoogaa ku yara fiican tahay. Waxaan kaliya kuu sheegayaa in ay jirto opportunity oo mataqaana adiga dadaalkaaga ku xiran, wax kasta dadaalkaaga iyo adiga saa u fikirtay ku xiran tahay. iyo sida computer skillskan oo loo baahan yahay xoogaa inaad taqaanaa computer skillska. Marka haddaad ku nooshahay masalan waddanka Maraykanka aad ku nooshahay, waxaan samayn kartaa oo anigaba aan sameeyaa hadda oo lacag mataqaana aan ka sameeyaa ganacsi toos ah because internetka ganacsigiisu wuu kala aad buu u fara badan yahay. Kuwo toos ah oo natiijada aad hore wax ka helaysid iyo kuwo commission iyo ku xiran iyo iska daawareeg oo ayaanada adiga dadaal badan gelisid wax kaaga soo dhacayaan sida Google AdSense waxaan ay dhahaan iyo waxyaalo badan luqluq badan la marayo. Laakiin midka straight-ka ah hadda aniga aan hore markaan ka bilaabo week ka bacdiba aan lacag ka helay oo ganacsi toos ah kan aan hadda soo socdo tusi doono ayaa ka mid ah. Hadda website-kan aan malaynayo badankiin inaad taqaaniin oo buugaagta laga iibsado oo la dhaho amazon.com www.amazon.com gaargashid. haddaan tusaale ahaan ka tusiyana kana haddaan tusaale ahaan ka tusiyo website-ku sida uu qormo ayaan idin tusayaa www
amazon.com website-kan haddaad gashid amazon haddaad gashid.com waxaad samayn kartaa account ayaa la samaysanaysaa seller account waxa la dhaho ayaa la samaysanaysaa markaas wuxuu ku ogolaanayaa inaad ku gadid oo ku iibisid alaabtaas aniga shakhsi ahaan buugaag ayaan ku iibiyaa masalan magaalada stoorada magaalada aadaysaa buugaag ayaad soo fiirinaysaa raqiis ah amazon aa kusoo laabanaya meel laga jeegareeyo oo waxa uu leeyahay nambarka aad gelinaysid nambarka buugga ku qoran haddaad masalan magaalada kasoo heshid buug raqiis ah amazonna lacag badan ka jooga waa list garaynaysaa buugga online-ka ayaa iska register garaynaysaa buuggii markaas hore ayuu kaaga iibsanayaa haddii markaas on demand uu yahay oo markaas wax suuqa looga baahan yahay uu yahay marka amazon wuxuu ka shaqeeyaa waddanka maraykanka inta badan maraykanka haddaa ku nooshahay amazonka ayaa hore ka bilaabi kartaa details badan iyo faahfaahin badan haddii mataqaana u baahan tihiin iyo qaabka loo samaynayo insha allah qofkii u baahan waa ila soo xiriiri karaa youtube-ka iyo message igu soo diri karaa ama comment ayuu hoos ku qori karaa midda kale oo haddaad ku nooshahay masalan adduunkaas kale kasoo qaado wadamada Yurub haddaa ku nooshahay meelo kale even waxaan arkay dad oo dad ku iibinayaan oo Mombasa joogaan Kenya oo online ka wax ku gadayaan ayaan arkayay waxaan kaloo arkay dad Hindiya jooga oo aad iyo aad wax u iibinayay even waxyaala Soomaalida caan ku tahay sida waxyaala badan dad kale ay iibinayaan Hindiya joogaan marka dadkaas Soomaalida ahaayeen mise dad Hindiyaan oo waxaas iibinaya ma kala garanayo laakiin website-kan kale oo international-ka ah waa kana www.ebay.com website-kan ebay waa international adduunka meel kasta aad joogtid ayaa wax uga iibin kartaa masalan waxaa samaysaa account ayaa la samaysanaysaa marka account markaas soo samaysatid wax kasta ku gadi kartaa kan alaabta guriga ku taal ayaa fiirinaya haddaa isdhahaysid wax macquulaha ku jira masalan dharka adiga aadan rabin dadku say u sameeyaan waa xaqiiqadii dadku ay say ugu bilaabaanba inta badanba waxay ku iibiyaan waxyaalaha ayaga markaas aysan rabin oo guriga masalan mara soo gadato waa kaa weyntaa ma rabtid online-ka ka list garayna ebay dadku wax kastay ku gadaan isaga amazon wuu ka bedelan yahay amazon wuxuu u badan yahay buugaagta iyo electronica kale laakiin ebay everything ayaa lagu iibiyaa wax kasta aad ku iibin kartaa wax lasoo isticmaalay wax cusub wax dhexdhexaad ah waxa kaloo ebay ku fiican yahay waa international meesha adduunka aad joogtid meel kasta adduunka aad joogtid waxbaad ku iibin kartaa laakiin amazon maraykanka iyo adiga wadamadan westernka ayuu u badan yahay especially United States and UK-na way jirtaa amazon daa UK ku nooshahay amazon waxaa ku iibin kartaa marka waxyaala badan aad samayn kartaa jirta ganacsigan waa ganacsiga tooska ah masalan waa straight waa ganacsi adoo dukaan furta wax iibinaya kali lamid tahay online-ka ku iibinaya waxaa jiraan qaabab kale oo internetka lacag looga sameeyo ay ka mid tahay masalan Google AdSense waxaa kaloo samayn kartaa affiliate marketing waxa la dhaho oo asagana website ba dhisaysaa website-ka markaa dhistid wax product alaab ayaa online ah oo ku xayeysiinaysa waa online website kale waxaa masalan Amazon-kan laftiisa waxaa kasoo qaadaysaa link masalan Amazon ayaa waxaa lagu iibinayaa cameradaas ayaa link aad soo qaadaysaa
linkiga website-kaaga ayaa soo gelinaysaa, review ayaa qoraysaa, yani productiga waxaa ka bixinaysaa detail warbixin, productkan waa fiican yahay, aad buu u fiican yahay, waxaasuu ku fiican yahay, waxaan kugula talin lahaa masalan inaad hadda camera fiican raadinaysid, this is the best, yani midda ugu wanaagsan oo aad ka iibsan kartid hadda available-ka hadda ah waa midaan. Masalan markuu kilka qofka ku siiyo link sorry waxaa kilik aa ku siinaya linkiga soo qaadaya linkiga macnaha waa kamerada linkigeeda soo gelinaysa, kilik marka ku siisid Amazonka ayuu ku dhacaya, commission ayuu ku siinaya, marka percentage ayuu ku siinaya maadaama website-ka kameradaas qofka uu ka iibsaday through your website, waxaad commission ay helaysaa Amazonka. Marka saas camal aad ku samayn kartaa, taas midana Amazonkana awalbaan soo sharaxay. qaabab kale ayaad lacag ku samayn kartaa, masalan haddaad YouTube casharo soo gelisid ama waxyaalo dadku ay interest garaynayaan oo faa'iido ku jirto oo dadku ay ka daba dhacaan oo aad heshid dad aad u fara badan oo mataqaana subscribers aad heshid. ayadana sidoo kale Google AdSense ayaad lacag ka samayn kartaa oo maadaama YouTube-ka Google-ka uu leeyahay, YouTube-ka waxaa la saxiixanaysaa Google AdSense-ga, sidaas darteedna lacag ayaa kusoo dhacaysa. sidoo kale waxaad samayn kartaa oo Soomaalida ay sameeyaan badanaa, website ayaa dhisanaysaa Soomaali ah maadaama luqadda Soomaaliga aad ku hadashid, website-ka waxaad rabtaa ka dhigi kartaa website. haddaad rabtid aqoon ayaa ku faafinaysaa, haddaad rabtid newska daily news ayaa soo gelinaya, maalin kasta war news ayaa soo gelinaysaa. dadku haddii masalan a million views haddaa heshid masalan 5,000 oo qof, 6,000 oo qof, 20,000 oo qof oo maalintii soo booqanaya sida website-yada qaarkood Soomaalida oo newska dad fara badan a million laga yaabaa inay soo booqdaan waqti yar. markaas waxaad samayn kartaa ayadana inaad shirkad u tagtid, masalan dahabshiil oo kale u tagtid ama kasoo qaad mataqaanaa shirkad Soomaali leedahay oo shirkad weyn ah u tagaysaa, waxaad haysaa website-keeda intaasoo million qof soo booqda. marka dadkaas dan ayaa kugu jirta inay arkaan ganacsigiina iyo waxyaalaha idinka offer garaynaysiin, mayna xayisiiyaa shirkadiina oo commission sponsor website-ka ugu siinaysiin mataqaanaa xayisiintaas adiga iska leeyihiin, adiga aad soo gelinaysid million qof, adiga mataqaanaa oo adiga aad leedahay ayaa arkaya shirkadaas iyo waxyaalaha ay xayisiinaysa oo laga yaaba inay iyada ama lacag ku dirsadaan ama mataqaanaa ganacsi kale la samaystaan. marka sidaas darteedna shirkadda u tagaysaa, waxaa la saxiixanaysaa heshiis inay adigana ay lacag ku siiyaan qof kasta oo dadkaas ka mid ah adigu aa haysatid oo ayaga wax mataqaanaa wax xiriir la sameeya amase xayisiin caadiyaba shirkadda ku xayisiinaysaa, shirkado 4 shirkadood 5 shirkadood ku xayisiinaysaa, lacag ku siinayaan ayagana. waa ina heshiis aad la gashid adiga inaa website-ka aad ku xayisiisid, ayagana dabadeetana ay lacag ku siiyaan. lacagtaas waxay noqon kartaa hadda shirkadaha Soomaalida for example ahaan waxay bixiyaan lacag website-yada wax ku xayisiistaan oo dhan lacag ay siiyaan. lacagtaas waxay noqon kartaa $50 ilaa $200 ilaa $300 sida aan warbixino ku hayo. marka imagine adiga website aad leedahay oo website news ah ama mataqaanaa wax kale ama website ganacsi, $200 $300 kuusoo dhacdo,
faa'iido badan aa ku qabtaa soo ma so marka videoga inaan dheereeyo ma ku dheereeyo ma rabo muhiimadda aan meesha videoga soo geliyey waxa waaye inaan fiiriyo dad Soomaali oo interest garaynayo haddii ay jiraan videogan waa test haddii jiraan dad interest garaynayo inaan markaas aan caawiyo ilaahay haddii idmo wixii aan aqoonteeda ah oo aan garanayo marka subscribe click ku sii si aad hadhow casharada soo socda aan kuula socodsiino insha allah like it click like ku sii commentigaaga meesha ku qor wixii aad u malaynaysid ii soo dir message sida ugu dhaqsaha badan ayaan uga soo jawaabi doonaa waana mahadsantiin dhammaantiin thank you